الرحمن الرحيم كلنا وعن حيس حنبارسان داوديال meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xogta wararka SBS TV Muqdisho barnaamijka waxaan la socodsiinaysaa anigoo ah Nimco Cabdisalaan Maxamed qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ka qayb galay xarig jarka xarunta baadi qabka xoolaha gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida Generaal Liibaan Cali Yarow oo ciidanka qalabka sida kula hadlay gobolka Gado wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho kulan howleedka looga doodayo arrimaha baahinta awoodaha intaas iyo qodobo kale oo idin qarinayo ayaad ku maqli doontaan barnaamijka iminkana u diyaar garooba barnaamijkaba idinkugu waramay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta xariga ka jaray xarunta baadi qabka ee xoolaha nool oo lagu sameeyay dib u dhis iyo dayactir saayida xarig jarka kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo ku xigeenkiisaba waxa ay kormeer ku sameeyeen qaybaha ay xaruntani ka kooban tahay oo qaybsanta 3 qaybood oo lagu talagalay in lagu kala ganaaxo xoolaha ku xadgudba bilicda caasimada xaruntaas baadi qabadka waxay xalin doontaa ama ay qaban doontaa haddii alla idmo xoolaha magaalada la isaga soo daayo ee bacaha cuna ee qashinka iyo wasaqda cuna ee hilibkooda iyo caanahooda ay dhibaato ka soo gaarto dadka in magaalada laga nadiifiyo oo halkaan lagu soo xareeyo ayaa loogu talagalay xeradan isla maantay ayuu soo bixi doonaa haddii alla idmo go'aanka ku saabsan xoolaha magaalada la isaga soo daayo magaalada waxaa lagu soo dayn jiray lo'da iyo ariga balse hadda waxaa ku soo ziyaaday geel iyo dameero afartaas nooc ayaa waxaa loo dhisay 4 goobood oo aan kala fogeyn oo loogu talagalay dhammaantood in lagu soo xareeyo xoolahaas dadka iska leh xoolahaas waxaan u soo jeedinaynaa halkan inay xoolahooda ay xafitaan oo magaalada ay ka ceshadaan cidda ceshan weyda haddii alla idmo waxaa jira ciidamo iyo gaadiid ay shaqadoodii tahay inay halkan ku soo xareeyaan magaalada marka xoolaha laga soo xareeyo oo ama dadku ay ceshadaan ama neefkii la cesho waayo halkan lagu soo xareeyo waxa soo baxaysa magaalo nadiif ah iyo xoolo nadiif ah oo aan wasaq iyo qashin iyo bac aan cunayn oo caanahooda iyo hilibkooduba oo caafimaad qabo kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo sharaxayay waxyaabihii uu ku soo arkay xaruntaasi iyo ganaaxa ay muteysan doonaan xoolaha laga helo banaanada
gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida Generaal Liibaan Cali Yarow oo qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka kula hadlay gobolka Gedo ayaa waxa uu ka amray in aysan ka qayb qaadan karin arrimaha la xiriira qabiilka iyo siyaasadda. waxa uu sheegay in sargaal iyo askariba ay xaraan ka tahay ka qayb qaadashada arrimaha qabiilka iyo siyaasadda wixii ka dambeeya maalinta uu askari uu qorto. waa kan generaalka oo sharaxaya arintaas. shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa waay sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur in uu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso in uu ka qayb galo xaraan ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganay dhan marka waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxu aan maqleynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socda hadii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad ammaanka asugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay ammaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas'uuliyadda intaas waa bis wax kale laga maro ammaanka sug dawladda cid allaale cid ay keensatana waad ku qasban tahay inaad dawladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha naqato mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan uu u dhaxeeyaa marka dadka u dhaxaysa maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas-uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugtaa mas-uuliyad ay tahay marka waxaan leeyahay waxaa digniin iga ah ama qof kastoo meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo uu naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo kaasi wuxuu ahaa Generaal Liibaan oo sharaxayay waxyaabaha ay muteysanayaan askarta qaadata laaluushka ama askarta ka qayb qaadata qabiilka iyo arrimaha aan ayaga quseenin iyo ganaaxa ay muteysanayaan. wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay kulan howleedka looga hadlayo arrimaha baahinta awoodaha iyo kheyraadka wadaaga iyo nidaamka maaliyadda ee federaalka kuwaas oo lafdhabar u ah dhameystirka dastuurka. kulamo howleedkan oo socod doono muddo isbuuc ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socota xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha dastuurka, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha maaliyadda, UNDP iyo qaybo ka mid ah hay'adaha loo baahdo ee ka tirsan dawladda. maanta halkan waxaa nooga furmay bilowgii shirar isdaba jooga oo shaqo waa shirar shaqo kulan howleedyo weeye oo aanu la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka oo noo socon doona muddada labada week ee soo socda kulamadaas oo aan wasaarad walba iyo hay'ad walba kula kulmi doono ayaa waxaanu ku soo dhiraandhirinaynaa aragtiyaha kala duwan khaasatan marka la eego xagga dib-u-eegista dastuurka mawduucyada kala duwan aanu ka hadlayno waxaa ka mid ah awood qaybsiga iyo jaangooynta doorarka kala duwan ee ay kala yeelanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku. ahamiyadda kulankana marka ay leeyihiin waxa weeye in la helo aragti wada socota oo dowladda federaalku ay leedahay markay noqoto xagga siyaasadaha kala duwan ee maamulka iyo maareynta howlaha qaranka. waxaanu ku rajo weynahay shaqooyin wacan oo soo qabsama ilaa iyo hadda sida shaqada laga soo qabtay hanaanka cadaaladda, shaqada laga soo qabtay hanaanka biliiska, shaqooyin ballaaran oo wasaaradda arrimaha guduhu ay ka soo qabatay awood wadaagga iyo howlahaas oo dhan inta aanu isla meel dhigno in ka bacda aanu safarro u bixi doono aanu maamul goboleedyada ku tagi doono oo iyana la wadaagi doono afkaarta iyo mabaadi'da asaasiga ee la rabo dastuurka inay galaan
iyana ay wax naga oran doonaan kabacdina madaxda qaranku halka intay ka wada xaajooto ay ku soo idlaan doonto arrinta dib u eegista dastuurka oo in muddo ah dadka Soomaaliyeed ay ka dhul sugayeen marka shaqo ballaaran baa noo socota oo waxtar leh oo aanu hay'ad walba oo dawladda ah maadaama hay'adaha wasaaraduhu ay nooga aqoon roon yihiin arrimaha ay maalin walba gacanta ku hayaan iyagu inaanu taladoodana dhageysanno baan rabnaa oo dalkan barnaamijkiisa awood qaybsiga iyo federaaleynta la taabageliyo oo la isla meel dhigo sida loo maamulayo shaqo walba oo dawladdu ay hayso iyo doorarka ay kala qaadanayaan wasaaradda federaalka ama hay'adda federaalka ah iyo hay'adaha dawladaha xubinta ka dawladda federaalka waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka xogta wararka SBS TV-na waad nagala socotaan iminkana kala fadhigii shanaad ee golaha deegaanka Qardho ayaa ka furmay magaalada Qardho ee xarunta Karkaar waxaana kala fadhigaani ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada kala fadhigii shanaad ee golaha deegaanka Qardho ayaa ka furmay magaalada Qardho ee xarunta Karkaar waxaana kala fadhigan ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waa kan gudoomiyaha deegaanka Qardho oo ka warbixinayo sanadihii la soo dhaafay wixii uu qabsoomay saaka waxa weeyaan kala fadhigeeni ayaynu hala ka furanaynaa insha Allah hadii alla yiraahdo runtii 6 bilood oo ugu dhameysay ama sanadkii ugu dhameeyay markaynu isku qaadno waxa inoo qabsoomay waxyaalo fara badan oo runtii meelo fiican inoo gaaray ay ugu horeeyaan runtii waxa inoo hargalay oo magaalada Qardho ka hirgalay 2 wado oo laami ah iyo deyrka gurigii uu ahaan jiray maayirka degmada uu ahaan jiray oo aynu ka helnay GBLG-ga runtii 3 mashruuc ayaa sanadka inoo ka hirgalay xagga GBLG-ga ama waxqabadka degmada waxa kale oo inoo hirgalay SDM-ka in la dayactiray 3 MCH iyo 3 iskuul oo u badnaa tuulooyinka ay hoos yimaada magaalada Qardho oo runtii dayactir u baahnaa iyagana wax laga qabtay runtii waxa jiray iyada wada jeey oo la dhigay oo iyadana wadada aada xorgoble waxa jira iyadana degmadu ay ka qayb qaadatay oo runtii GBLG-gana dhinac kaga jiray barxadda weyn oo suuqa weyn oo beeraha dhexdooda ah oo runtii barxaddaas oo ay ku baxday lacag $24,000 oo markii hore aan loogu talagelin 6,000 oo kamid ah waxa bixiyay dadka ganacsatada oo magaalada bixiyay laakiin inta kale waxa ka qayb qaatay dawladda hoose argadana waa laga dhisay runtii argada quruxda badan waxa la rabaa in la ilaaliyo marka nadaafadeeda iyo horumarkeeda intaba in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxa kale oo laga hirgeliyay sanadkan runtii ilaa 3 ceel baasoonaha magaalada Qardho laga hirgeliyay 2 ceel oo magaalada NRC qotay iyo 1 ceel oo isku tashi ah oo dadka dadweynaha ay qodeen garheleed iyagana waxa ahay waxqabadkiis runtii sanadkii la soo dhaafay ama 6 bilood ugu dhameysay ayay ahaayeen runtii waxa jirta iyadana in xabaal reer iyadana laga hirgeliyay deer weyn oo 600 oo mitir ah hal iskuul dugsi sare hal boodhan hal wuxuu yahay ardo quraana waa u mahadcelinaya inta badan waxa ka qayb qaatay dadka deegaanka ayaa ka qayb qaatay oo dhismaha iska lahaa oo runtii ilaa wax looga mahadiyaa runtii hay'ado badan baa xagga in ka caawiyay horumarinta ama xagga livelihoodka oo ugu horeeyaan hay'adaha WFP DRC NRC CARE oo runtii intaas oo dhanba ay ka qayb qaateen dadka noloshooda ama livelihoodka iyagana waa u mahadcelinayna waxa kale oo u mahadcelinaynaa runtii waxa ka hirgalay dawladda hoose ee magaalada Qardho barnaamijka la yiraahdo FMIS oo ah nidaamka maareynta maaliyadda oo runtii lagu maareeyo xisaabaadka dawladda hoose galaan 3 wado oo runtii la rabo in laga helo hay'adda GBLG-ga iyo hal MCH oo kaamba ah intaas inay noo qabsoonto sanadkan oo mashaariicda aynu ka heli jirnay ah runtii waxa kale oo inoo qorshaysan 4 iskuul oo dayactirkooda ah oo tuulooyinka u badnaan doona hadii la yiraahdo iyo 4 MCH oo iyagana tuulooyinka noqon doona inta badan iyagana in la dayactiri doono insha Allah taala waxa jiri doona iyadana in la qodo 2 ceel baa qodada ku jira insha Allah oo iyagana tuulooyinka qaybtood laga qodi doono waxa ku jira ceel hadeer socdo isagana oo safe oo meesha la yiraahdo
IDB-sida loo qodayo aan wali dhammaan insha Allah isagana waxaan rajaynaynaa inuu guuleysan doono ilaahay idankiisa iyadana in la helo oo waatuu inoo dhigay madaxweynuhu laba mashruuc oo kala ah isbartiibadii magaalada Qardho oo magaalada geeskeeda laga dhigay iyo guriga madxafka iyo library-ga noqon doona oo ah gurigii hore oo duqa degmada Qardho oo anagu aan deelka dhisnay insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha inoo qabsoomi doona inay ka mid noqon doonaan waxa iyagana ku jirta oo madaxweynuhu ballan qaaday inuu wada gufure iyo isku xiri doono insha Allah ilaa suuqa si wadadaas ay noqoto wada bilic leh sadexa intaasna insha Allah waxaan rajaynaynaa inay inoo qabsoomi doonto hadii alla yiraahdo waxa jirta iyadana in laga codkaasi wuxuu u dambeeyay barnaamijka wararka SBS TV Muqdisho aad ka daawanayseen la socodsiinaya anigoo ah Nimco Cabdisalaan Maxamed intaan barnaamijka xiga dib hawada kugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo amaana Allah سقاشان مدى